وفان وحي نولشيدا برفد أنا خاص media maadaama asxaabteeda ay joogto dad badan aan ku leeyahay faniskeyga ah aad ii taageera aad iiga murga aad iyo aad xumaatadeyda aan rabin ay joogaan marka ma doonayo inaa inta wax ka sheego. asalaamu calaykum daawadayaasha qaaliga ah ee bartan ku xiran kulanti wanaagsan. waa mar kale iyo muuqaal furiin. dhab ahaantii isbuucan waxaa la dhihi karaa waa isbuuca furiinka ee soomaalida dhexdeeda. waxaynu mar kale ka hadlaynaa Catoosh Yare oo afka furtay. Catoosh ayaa ku sheegay muuqaal live oo dhowaan laga soo duubay iyo mid uu gooni kaligiis live u fadhiyey ayuu ku caddeeyey Catoosh inay kala tageen xaaskiisii asagoo wejigiisa ay cara ka muuqata ayaa su'aalahaasi oo dhowr ah marka qaybta commentiga lagu weydiiyaa ayaa Catoosh waxaa wejigiisa laga dareemayay inuu dhibsanayo oo uusan doonaynin inuu ka jawaabo su'aalahaas iyo kuwo la mid ah. waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalkaasi oo Catoosh laga dheehan karo wejigiisa inuu diidan yahay inuu su'aalahaasi sii dhexgalgalo. waxa uuna sheegay in noloshiisa private-ka uusan doonaynin inuu keeno baraha bulshada ee Soomaalida. waxaynu horey u tabinay in gabadha lagu magacaabo Maslaxo oo imika la tawinayay in ay kala tageen Catoosh ay horey u sheegatay in la jirdilay uurna laga soo riday waxyaabo badan oo dhibaato ahna uu ku sameeyey Catoosh Yare. waxaa kale oo ay sheegtay xilligaasi in loo qariyay Catoosh da'diisa saxda ah looguna sheegay inuu yahay cunug yar oo 21 jir ah balse imika ay ogaatay in da'diisa saxda ay tahay 26 sano. taasi ayaa ku abuurtay fajac aad u weyn gabadhaasi oo ay la yaabtay. ugu dambeynna waxa ay codsatay furiin kadib markii uu saan u jirdilay. halkan waxaan kugula wadaagayaa muuqaal uu Catoosh Yare afkiisa wax walba kaga caddaynayo. bal adiga oo mahadsan qaybta commenta wixii talo dhaleeceyn iyo fikir iyo wixii khalad ah iyo wixii sax ah ee bartan kaaga baxay in aad inagula wadaagto qaybta commentiga. muuqaalka aad like garayso channelkana aad subscribe dhahdo aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka. ku soo dhowow Catoosh Yare iyo siraha uu kashifay oo dhammaystiran. daawasho wanaagsan ayaan ku leeyahay una sii sheer garay asxaabtaada qaaliga ee kugu xiran si muuqaalku uu heer sare u gaaro. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Soomaali madaxweyne ka noqdaa leh dhihi lahaa dad badan ida waa bari lahaa wallaahi bilaahi talaa. Soomaaliya madaxweynaheeda Catoosh Yare waaye haddii la dhihi lahaa waxaa ku dhahay 18 gobol xabsiyo waaweynaan ka furi lahaa. idab aa la yeelaa booska farmaajo haddaa taagnaa lahaa dad badan meelaa iska saari lahaa. idab like noo saar noo sheer garay muuqaalka u dambeeya hala soo booqdo. Soomaaliya waxay ka gudbi la'dahay 4.5 iyo qabyaalad. kan reer hebel waa kan reer hebel waaye kaasi reer hebel waaye ay Soomaali ka gudbi la'dahay waa wax caalamka uu ka tagay isla markaana uu ogaado caalamka inay waxba taraynin. dadka Soomaaliyeed qaarkood iyadoo Ramadaan lagu jiro ayaa lagu xamana adoo arkiis lagu xamana adoo arkiis